Sheekh Maxamed Rashiid Garowe oo ah sheekh caan ka ah dhulka ay Soomaalidu degto isla markaasna maamulo ka xarunta cilaajka ee Daarushifa ee magaalada Garowe ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug. garoonka diyaaradaha Cadaado ayuu suxufiyiinta iyo qaar ka mid ah culimadii soo dhaweysay kula hadlay. aad ayay u mahadsan yihiin sida wanaagsan ee sharaf kale ee ay noo soo dhaweeyeen insha Allah biidhnillaahi tacaala runtii waxaanu nimid magaalo Soomaaliyeed ayaanu nimid oo ammaan ah oo wax dhibaato ah iyo wax rabash ah midna uusan ka jirin insha Allah biidhnillaahi tacaala waxaan u nimid sida aynu horeyba u sheegnay inaan magaalada ka furo xaruntii cilaajka ee Daarushifa insha Allah biidhnillaahi tacaala hawlihii ummadda Soomaaliyeed ay u haysay ayuun bay maaragtay ay u qabanaysaa waana ku mahadsantihiin soo dhaweynta aadna soo dhaweyseen insha Allah biidhnillaahi tacaala ilaahay waxaan uga bariyaa qof walba oo xanuunsan in ilaahay uu shaafiyo kuwa sixiran sixirka ilaahay uu ka buriyo kuwa jimanku dhibaatooyinka ay u geysteen in Allah uu shaafiyo kuwa shayaadiinta jinniga iyo shayaadiinta insigu ay waxyeeleeyeen dhibaatooyinkan ay ku hayaan in Allah uu maaragtay uu ka xafido oo uu ka qabto insha Allah biidhnillaahi tacaala inta aan joogi doono ilaahay baa og laakiin magaalada Cadaado iyo maaragtay nawaaxigeeda waxaan u nimid in aan walaalaha maaragtay muslimiinta ay xanuunsan ee Soomaaliyeed in aan ugu nusrayno الرقية الشرعية للقرآن الكريم والسنة النبوية إن شاء الله بإذن الله تعالى مدة كوبان أيان مارت أن جوجي دونا كفايديسي وناكسن وأنا مهتسنتين سيدا مارت وناكسن شرف كله يا نوسو دويسان إن شاء الله بإذن الله تعالى sheekha maalmaha soo socda waxa uu ku sugnaan doonaa magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug. Saadaqla ka warbaahinta SBC magaalada Cadaado.